ninkii wiilkayna ahay oo shalay aan haddaan nahay maqoyska aadan maxamuud aan ula tagnay oo awmantaan aan ula tagnay oo awdagoodii aan ula tagnay intaba noo doorteen khayr iyo wanaag iyo maxadaan ka sheeganaa waa mahadsan yihiin haddana waa u mahad celinaynaa wiilkii asaga ahay yaa noo socdo noo caleemo saaran tolka waxaan ka rabnaa sidii shalay ugu dhiibanay haddana u dhiibaan aan tolka ka codsanaynaa maanta waxaan xafladaan u dhignay maxushma axmed qaroosh oo xilka noo soo hayay 5 sano xilkaas oo ku mahadsan yihiin mantaan iyo dagoodiya iyo ajuuraan intii waddankan la deganeed ay ku mahadsan yihiin ayaga oon haddana hadda aan u baahannahay kursigii aan dib ugu baahannahay waxaan ka codsanaynaa tolweynaha hore noo soo doortay haddana in aan kursiga u baahanay ay nagu celiyaan horta axmed qaroosh taanu teena ma dhah hay gacmaha litusaan taanu teena axmed qaroosh taanu teena taas waa ku tashanaa umalaynaa ciddana waa ku tashatay go'aankana waa kaas aan soo bixinayn midda kale waxaan mahad u celinayaa tolki maxamuud mantaan dagoodiya iji ajuuraan oo na soo doortay shantii aan soo dhaafnay 2017kii iyo by electionkii mahad ayaan u celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsan tihiin haddaan taana waxaan inka sii codsanaynaa maxamuudkii mantaankii dagoodiyihii iji ajuuraankii waxaan ka codsanaynaa mar labaad waa soo caleema saarnay waa soo tafatirnay waa ku daraa tallaabadiis waa ku sii daraa kaas walaalkay axmed qaroosh waxaan soo qaadnay dhammaan aadan maxamuud waa ku soo qaadnay midda kale mantaanka ama dagoodiyihii ama iji iyo ajuuraan intii hore noo dhistay waa mahadsanyihin inta dambena codsi aan u geysanaynaa insha allah inaan helaynana waa rajaynaynaa insha allah axmed qaroosh shantii hore wax waa qabtay hadda safartaan lagu celiyna waxaan rabnaa inay taamisfoo as noqon doonto marka waxaan rabnaa annagaan u sheegaynaa dadweynihii kale annagoo maanta wiilkii haddana in la codsanahayno oon leenahay wiilkii xaggayna waa ka soo baxee awal mbiga noo ahaan jiray wajawaas ahaan jiray haddana waxaan rabnaa inaas nooga soo noqono taana 5 kaalada nooga soo noqon rabnaa midda kale horta ninkaan axmed qaroosh la yidhaahaa anaga kuma khasaarin weliba ciddan aadan maxamuud la yidhaahaa laguma khasaarin kuma khasaarinoo ninkii horta meelaan geynay haddana maanta haddana meeshii aan sii geynay waxaan u mid inay talaabiisa dheeraan doonto marka waxaan rabnaa walaalayaalow dadkii na soo dhisi ciddii aadan maxamuud heed ciddii maxamuud tahay ilaa matankahay waa wada maasinay waa mahada u celinaynaa haddana waxaan rabnaa wiilkii inaan noogala celiye 5 kale noogala celiye waxaan malay 5 kale loogu celiyey gadaal aan u jeesan doono oo horey u sakici doono u malaynaa sida axmed qaroosh baasiya war badan aan sheegayo wixii la sheegay hortayaa la sheegay wixii meeshaan loo imaaday tolkii aadan maxamuud oo meeshaan iskugu imaaday waa mahadsan yahay oo shalay
soo qaaday axmed qorosh maxamed soo qaaday waa ku mahadsan tolkii nala sii qaaday oo maxamuudku waa ku mahadsan tolkii nala sii qaaday oo mantaanku waa ku mahadsan tolkii ajuuraanka iyo dagoodihii iyo wajeer wistiga dhammaada wixii jooga kuru noogu soo dhaceeyo na soo qaadaa ku mahadsan haddaana waxaan codsanaynaa soomaalida waxay ku mumaayirtagii dayr la deysto gu-a loo deystee dayrta waana lasii gugu in loogala doono tolkii wajeer wiska deganaay oo dagoodiyo iyo ajuuraan iyo maxamuud iyo mantaana inas noogu dara aan ku codsanaynaa waxaan rabaa tolow ninkaan shalay annagaa keennay tolka waa u geynay maadaama shalay asceeb noo keenin waxaan rabaa inaan tolkii annagoo qalbi furun gacmo furun wiilkii aan ku soo dhawayna tolkii aan u geyna maxamuud aan u geyna mataan aan u geyna haddana dawoodiya ajuuraan ummadda kaloo dhulka naga gaal iyo muslimba maxaan codsanaynaa dagoodiyo wiilkan abkee aadan aad soo qaaday inaas nala qabta mataan as nala qabta maxamuud as nala qabta dooraay baallaan ma buubto annaga waa soo baalaynaa wixii maxay ahayd wixii nagu dhex jiruna waa samaadeen waxaan rabnaa inaa wiilka nala qaadiin inaa wiilka nalala qaado aan doonaynaa walaalayaalow waxaan idinka baryaynaa wiilkan walaalkeenne oo shalayna gambarka ku jiray 5 sano haddana waxaan idinka baryaynaa 5 socoto inaan ku celisaan oon ku wada celinno oo si wanaagsan oo niyad furan oo qalbi furan aan ku celinno marka walaalayaalow waxaan idinka codsanaynaa horta wiilkan ma nala qaadeen oo gambarka ma geynay markan ma qaadeen oo niyad ma idinka tahay oo lilaahi ma idinka tahay tolka waxaan leenahay qof markaas mas'uul haaya ama xoolo la jira ama dan haaya waxbaa ka kaasirma oo sidii la rabay aan u dhaqmin soo ma tolka waxaan leenahay wixii qoonsadeen intii aan hoggaankahay inay raalli 114 subayn ku xiran wax Allah waxaan haliyay raalli hada raalli gelinta kadib waxaan ognahay in ma aragtay doorashada horta la isdooranay waa mas'uul xil la soo dhiibay mas'uulka xilka markii la soo dhiibayna waa adeeg guud oo la soo dhiibay adeegaas guud waxaa la rabaa in haddii imtixaan cunuga markaad iskuul akhrista oo staamka iskuul akhrista soo markii iskuul la xiray report ma keenay number 1 waxa waaye qofkii la doortay jaga loo doortay baa loo doortay haddaas ba asaga bixin oo stu dambaan rabaa leeyahay in la xisaabtamo soo saas ma ani waxaan diyaar u ahay in leela xisaabtamo aan annaga fariisana oo arrintan ka hadalna ay maanta noogu dambaysa ummadda wajeer west la dhex qaada wax leela qabta waxaana aaminsanahay haddii fidna iyo dulun meesha laga bixiya in ay reer wajeer west ugu qanacsan yihiin in ay waxqabadkayga reer wajeer west ku qanacsan yihiin ayaan aaminsanahay insha allahu tacaala marka tolka waxaan ka codsanaa in sidii iidaheed wax leela qabta in sidii iidaheed leela dadaala in ma aragtay intiin soo qabtay iyo inta ii dhimin aan dhamaashtirtay marka tolka waa mahadsan yahay horay aan u bilaabay oo dhahay wax Allah wixii ka gaasiray haliga raalli ahaada wixii ziyaadiyoon qabtay waxyaalaha aan sheegay ay kamid yihiin waa tii lay doortay waxa iga ballan ah in aan dadka isu keena in aan ogolaanin qaybis in talada aan meesha ku wada hoobina in qof wajeer west anfaca waxaan aaminsanahay ku orda in aan ugu fiicanahay inay wajeer west soo dooran insha Allah taala marka waa mahadsantiin waxa laga yaabaa adeerkii cali waxa siray gabdhaha iyo ma aragtay dadka danleyda ah hilmaamin safartan dambe hadaa la soo doorto gabdhaha iyo dhalinyarada
maxaa yeelay hadda markii wax labaad aan raba oo hawadan dambe ay soo gasho kaal wax raadi dhahay waxaan faraa dadka taagan oo wax rabaan haddii loo taagan yahay in tolka loo adeega oo wixii la raba adeeg ay tahay in xisaabta ana leela xisaabtamaa la dhegaysta oo wax huuhaah loo gelin sifa haddii ana lii bedela xisaab iyo waxqabad iyo waxtar leegu bedela oo wiil iga dheereeya waxqabadkii loo keena soo saas ma ahna bahasha waa reer hebel iyo saas iyo ma maxaa yeelay inta reer hebeloo taagan anay isoo wada doorteen anigaa maanta u dhaxeeya anigaa xilkoodii haaya anigaa xisaab diyaar u ah marka ooda dhacma waxaa la yidhi siday u kala koreeyaana loo qaadaa talada waxay ka bilaabani cunugii shalay shaqada u dirsaday xisaabtiisii aan hela marka insha allahu tacaala sidaas ogtihiin waqtiga siyaasadda markii la gaara barabagaan iyo isjijiid iyo fidna iyo sidaasaa jirta waxaan inka codsanaa idinka inaas barabagaankana gelin fidnadana gelin qofkii axmed qolosh wax u raadinaa aas dhaha ninkan sababihii loo doortay oo xilka aan ugu dhiibnay intaasna ka gaabay intaasna kaamili waa ognahay dadka oo ma aragtay shakhsiga ah oo danta shakhsiga ah lah in waxay filayeen ay jiraan meeshana ay ma aragtay intii yeeshay yartay laakiin wixii guud adeerkay cali waxaa yiri ninkan haddaan shalay tolka u geyni ceeb nooma keenin aniga waxaan aaminsanahay markiin hadhaadho sitiimarka u horreeya aan keenay waxaa la yidhahay hadhaadho haddaa sitiimar keenta tolka kuma soo noqonaysid waa lagu doorana markiin sitiimarka keenay waxaa la yidhi haddaa hadhaadho district ka dhigto oo idoo dad laga qora aan aragna mar dambe dad kuma soo noqonaysid tii u dambeeyaad samaysa soo saas ma markaan girif EGBTC ee shaqada aan girif ka qabtay aan qabanay waxaa la yiraahdaa hadaasba girif saan yeeshay dad kuma soo noqonaysid soo maqlays markaan shaqaalaha wajeer west ka imaaday oon shaqaalaysiinay oon dadka intaas dhan qoray inkastoo dad badan oo shaqo raba ay wali ii dhiman yihiin waxaa la yiraahdaa intaanaas qortay soo ma noqonaysid dadka ii dhimanna wixii horan iyo wixii kale waxaa og ninkii qabiil ninkeeda dhamaysan ninka ay dhaxda u joogaan soo saas ma markii baasariga la bixinay oo ilmaha iskuuladaya laga ekaysiinay fiiska oo ma aragtay dadka waayeelka iyo dadka tabareyda ah oon lacagta fiista iska bixin karin aan ka damaynay oon fiista ilmihii aaday waxaa leedahay ilmaha iskuulka laga bixinaa waalidkood iyo waalidkii waxay ku rafaadi lahaayeenaas qabatee dadka kuma soo noqonaysid waa lagu doorana markaas dhulka ascolka jira oo lisku laay oo markaan imaanay wajeer west dhexdeeda as dagaalka jiri wajeer west iyo ceeldhaas as dagaalka jiri sokeeyaha as islaynay waxaa leeyahay haddaas dadkaan heshiisiisa naguma soo noqonaysid adoo baarlamaanka joogan ku dooranayna soo maqlays haddaan dadki waxay yihiin candha iyo caanaheed ma jirtaa mise ma jirta soo ma jirta markii wiilasha dhibka as dhacay oo annaga ii reesiyelo as dhib naga dhex dhacay oon arrinta u istaagnay oo wiilashii mashiimaha gubi magacyahooda la keenay oo dawladda loo dhiibay oo la lahay kuwan waa cimri xerag waxaa la yidhahay kuwan haddaad safartan afka libeex ka soo bixis dadka kuma soo noqonaysid waa lagu doorana soo maqlays markaan imaanay oon MP noqonay jidadka ku yeela wajeer west jid national government ay lacag gelin kartay oo hoos imaadi kartay malaha
jidka habaas weyne ka soo baxo ilaa baaji ka socda aan gaazet garay midka meeshaan ka baxa oo arbajaan ka baxa aan gaazet garay kan inta ka baxa oo hadhaadho mara oo mirta u baxa aan gaazet garay markaan intaas qabanayo waxaa la yidhaahdaa haddaa meel xoolihii dowladda ay soo gasho aad dhulkan keenta nooguma soo noqonaysid waa lagu doorna iskuul ay Wajeer West ka register garaysan oo ilmahan ma aragtay tabarreyda ah oo magaaladan degan ay aadi karaan waxa noogu soo sokeysay oo iskuul secondary waxa noogu soo sokeysay waa gala markaan iskuul day ah dhisay on 4 maylka ka dhisay oo ilmaha ma aragtay Wajeer waa magaalada centralkeeda la wada degnaay ilmihi Wajeer West ay aadayeen aan meesha u sameynay waxa la ilaahay hadda iskuulkii akhriskiisa noo soo dhaweyso day nooga dhigto inta noo keento ma uma soo noqonaysid oo ku dooranayna hadda waa samay laakiin balaadana rabitaankiisa ay ku joogto tahay ha joogto ha noqotay ninkii intaas in ka badan oo sheegi doono oo meel official ku akhrin doono Wajeer West ka qabtay ninka aan ahayn ay wax u bilaabiyeen yawa markaas dhibki jiri oo wiilasha la laynay oo dagaalkii jiri inaan maslaxa ka shaqeeyo 2 jeer aan halkabtar u kiray 2 jeer aan halkabtar u kiray on diyaarad intaan imbiyaal dagoodiya ka soo qaaday in boorn aan ka soo qaaday Nairobi aan halkabtar madoogash u keenay oo heshiis u firisan soo maqlays odayaal aan inta ka qaadnay dad wada heshiis ah waxaan geynay meel la yiraahdo Nairobi shirkin ku heshiin hada runta la soo sheegay waxa xisaabta looga cararaan idin sheega shirkin ku heshiin aniga iyo imbiyaalkii boorn iyo kuwii dagoodiyo is waxda diyaarad noo qoran ay noo go'onta oo hadhaadho loo wada kulma oo ay geelishi mirta daaqayeen oo koom iyo kooyo loo sii socdo iyo ma aragtay sabarwa waa ogtihiin in dad la kireeyo mashiin la soo gubiyo dagaalka cusub loo keenay idoo la qaba hadday nabad imaado ama Axmed Qolos ku guuleystaa kuwa ayaga ahaa hadda igu cayna ninka shirka nabad keliyada ma dhamay marka waxaan ka codsanaa tolka meeshaan joogo oo gogashaan u sameeyay in aniga sida shalay ii qaadeen oo Maxamuud iyo Mantaan iyo Dagoodi iyo u geyseen ayaan horta meesha joogaa